السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا وناكسن صاحبيال جبيهان تيمبا ميل وبوضع على دونك كجوكتان halkani waa channelka aayaha gacmo furan ku soo dhawaada iyo sidoo kale aalada TikTok-ga horta hore aad u mahadsantihiin laba video aan soo sameeyo TikTok-ga iyo qosolkiisa ku saabsanaa subscribe-keena kor u kacay aad iyo aad kaga mahad celinaya hadii Ilaahay raali ka noqdo markaan waxaan idin hayaa warbixin si aad u fiiriso la yaab leh si aad u fiiriso farxad leh dadka dhaadheer iyo dadka gaagaaban ee qosaysa warbixinta ay la dhageysta maxaad ka taqaanaa qatarta caafimaad ee la xiriirta dhererka iyo gaabnida qofka su'aasha meesha ku qor waa sidaas markaan dhageyso waxa isbedel xoogan uu ku yimid jooga bini aadamka ee maanta marka loo barbar dhigo jiilkii hore celcelis ahaan haatan waxa kor u kacay jooga dadka adduunka jooga marka loo fiiriyo boqolkii sano ee la soo dhaafay waxyaabaha qaybta ka qaadan kara arintani waxa kamid ah isbedel ku yimaada nolosha bini aadamka boqolkii sano ee la soo dhaafay jooga dadka iyo kuwan waxa u dhaxeeya farqi weyn sida warbixinta qaybta hore hadda aad ka dhadhansanaysid sheekadu waxay u egtahay dadka hadda jiro ayaa ka dhaadheer dadkii hore laakiin waxa ku lifaaqan qofka cudurro far badan ayaa ku dhici kara ama uu ka badbaadi kara hadduu dheer yahay waxa laga yaabaa cudurro far badan inuu ka badbaado hadduu gaaban yahay waxa laga yaabaa cudurro far badan inay ku dhacaan marka labadaas qaybood ayay khusaysaa warbixintana inta ayaan ka sii wadi doonaa kulli adigu ma dheer tahay ma gaabanta Allah waclan xanuunadan hadda aan soo sheegi doono waa ka badbaadaysa ama way kugu dhacayaan boqolkiiba 90 laba dhihi karo laakiin waa cilmi baaris la sameeyay daraasad cilmi baaris ah oo sanadkii 2016 lagu daabacay bogga ka faallooda arrimaha caafimaadka iyo sayniska ee loo soo gaabiyo NCD ayaa muujinaysa in cilis ahaan joogga qofka ragga ah ee ku nool adduunka uu gaarayo 1 mitir 62 ilaa iyo 1 mitir 170 halka haweenka iyaguna dunida jooga ay gaarayaan mitir 150 iyo mitir 950 adigu mitirkaaga commentiga noo soo raaci celceliska halkaas ayuu marayaa okay website-ka lagu magacaabo On Health waxa uu ku waramayaa in qofka wuxuu ku waramayaa in nafaqa darrada iyo cudurrada ku dhaca qofka marka uu yar yahay ama uu yaraa ay qayb ka qaadan karto korinshaha bini aadamka ama jirkiisa saan ka warqabno jirooyin fara badan ay dadka qaar soo maraan markay yaraayeen marka dib ay u keenaysaa cudurrada iminka soo socda oo aan idin sheegi doono iyo kuwa kale ayaa la xiriira jooga bini aadamka halistiisana arrimahaas ku saabsan caafimaadka ayaa markan idin soo gudbin doona cudurka ugu horeeya ee qofka ku dhici kara ama uu ka badbaadi karo waxa uu yahay kansarka Allah manajana daraasad lagu daabacay bogga arrimaha caafimaadka ka faallooda ee loo yaqaano webmd.com waxa uu muujinayaa in haddii qofka ragga ah uu jooggiisu uu yahay 1 mitir 170 ama haweeneydu jooggeedu uu yahay 1 mitir 59 ay aad u hooseyso halista ah in uu ku dhaco cudurka kansarka waa fahmi karaysaan dhererkaas ama tilmaamay jooggaas okay daraasada lagu sameeyay 100,000 oo haween ah oo ku nool Europe iyo Mareykanka waxay muujinaysaa in haweenka gaagaaban ay halis ugu jiraan in uu ku dhaco kansarka qaybta taranka wal isku yimid daraasad kale oo lagu sameeyay 9,000 oo rag ah oo ay da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 69 sano kuwaas oo ku nool Mareykanka in ragga gaagaaban ay halis ugu jiraan in uu ku dhaco kansarka xiniyaha gala bismillahirrahmanirrahiim ana cabsanayo warbixinta marka akhrinayo warbixinada qaar idinka isaga raaxaysataan waxa ka faa'iidaan laakiin markii kuula soo sameynayo cabsi waa gabar youtuber hadda kor waxa arkay ka baqdo markii waxyaabo akhrinayso meena muujiyo laakiin ana dareemayo hadda okay xanuunka labaad ee qofka ku dhici kara waxa uu yahay xanuunka sonkorta ama kaadi macaanka صح ولا ما أنا سنكرتي كاد معك هاي يقارك هيجو اسكو متواي يا در هاي يا در لبضب اسكو متواي سنكرتا sida lagu xusay daraasad lagu sameeyay 6,000 oo ay sida lagu xusay daraasad lagu sameeyay 6,000 qof oo da ah waxa lagu ogaaday in dadka dhaadheer ay ka halis yar yihiin in uu ku dhaco sonkorta marka loo barbar dhigo dadka gaagaaban dadka dhaadheer sonkortina ku dhacdo waa looga jaanis badan yahay dadka gaagaaban ayaa sonkorta ay ku dhici kartaa kulli aniga warbixinta ku wareeray adig naftirkiina ay la wareeri doonto isla wareerina okay xanuunka kale ee saddexaad ee ku dhici kara waxa uu yahay
xinjirowga dhiigga xinjirada naqda ee xididada fariista saynis yahanada waxay ku guuldaraysteen in ay tilmaamaan in joogga bini'aadamka uu la xiriiro xinjirowga dhiigga ama dhiigga xinjirada naqda balse cilmi baarista waxay muujinaysaa in haddaba inta aad gaaban tahay ay yar tahay halista kaaga imaan karto xinjirowga sheekadan waxay u eg tahay dadka gaagaaban dhiigga xinjirowga kuma dhaco okay xanuunka kale u gudbaynaa sidoo kale xanuunka kale ayaa waxa uu yahay xanuunka wadna xanuunka waa naqaana qof walbo saynis yahanada ayaa ku waramaya in cilmi baaris ku saabsan doorka joogga qofka uu ku leeyahay xanuunkan okay waxay soo ogaadeen in dadka gaagaaban oo joogoodu uu yahay 5.3 laakiin mitir ahaan ay tahay 1 mitir 1.60 boqolkiiba 50 ay ka halis yar yihiin in uu ku dhaco wadna xanuunka marka loo barbar dhigo dadka joogoodu uu gaarayo 5.8 feet oo ay u dhiganto 1 mitir 6.70 haddaba celcelis ahaan warbixintan waxaan ku garanay ama aan ka faa'iidnay in qofka marka uu yar yahay xanuuno fara badan hadduu ku dhaco waa maqli jirna cunugan fadhiid waa cunugan makacama koro waaye waxaa arkay Soomaaliya qof 15-16 sano jiro 12 jir 11 jir way ama qof fadhiida oo 4 sano socodku ku bilaabay marka cilmi baaris waxa kamid ah in qofka yaraantiisa muhiim ay tahay koriinshaha hadda wadamada horumaraan joogna inteeda badan carruurta waa aragteen way ka koriinsho badan yihiin carruurta Soomaaliya markay joogaan ama Afrika ama ay duruufo la kulmaan marka warbixintan waa jeclaystay inaan idin soo gudbiyo ana og asxaabteeda inay ku jiraan dad dheer iyo dad gaagaabanba marka waxaan u maleynaa cudurrada kugu dhici karo iyo kuwa kugu dhici karin inaad kala ogaatay laakiin sheekadan waa iska qiyaali waa dhaqaatiir waxay sameeyeen Allahu a'lam mid 100% la dhihi kara ma ahan marka warbixintan intaasan kusoo koobaya asxaabay subscribe-ka nagu ronaada share-tii like-ga sidoo kalena fikradiinana waa soo dhaweynayna laakiin ugu dambeyn adigu mitirkaaga waa imisa